xubno ka mid ah xukuumadda Soomaaliland oo xalay isku shaandhayn oo ku sameeyay madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka soo horjeestay wasaaradihii loo wareejiyay sida warkaan magaalada Hargeysa kaga soo diray Cabdiraxmaan Daawud. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo wuxuu habeenkii xalay ahaa isku shaandhayn iyo isku bedel ku sameeyay golihiisa wasiirada iyo sidoo kale hay'adaha madaxa bannaan ee dawladdiisa. isku shaandhayntani oo ahayd mid inta badan saameyn ku yeelatay wasiirka xigeenada iyo sidoo kale wasiiru dowlayaasha dalka ayaa waxaan wax ka weydiinay sida arkaan qaar ka mid ah oo ay saameynta ku yeelatay digreetadii uu soo saaray madaxweyne Silaanyo la markaasina loo bedelay wasaarada kale iyadoo laga bedelay boosaskii ay hore u joogeen. wasiirka xigeenkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Kaysar Yuusuf Cabdullaahi oo loo bedelay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaan wax ka weydiinay sida uu arko booskani cusub ee madaxweyne Silaanyo oo igmaday inuu qabto qaranka. waxaanu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan marka koowaad ugu mahadnaqayaa Ilaahay mar labaad ka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo oo runtii markii afraad digreeta madaxweyne ugu magacaabay anagu runtii waxaan nahay gacan yarayaasha madaxweynaha marka meel kasta oo naloo diray inaan ka shaqeyno waan ka shaqeynaa diyaarna waanu nahay waan ka soo dhalaalaynaa shakhsiyan runtii wasaaradda arrimaha dibadda hore baan uga shaqeeyay waxaan ahaa ambassador at large imikana waxaan insha Allah rajeynay inaan si weyn muxuu ahaayay hawsha u gudan doono waxaan runtii rajeynayaa saaxiibadayda wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya ugu horeeyaan dinjiriyaasheena jooga wadamada kala duwan iyo muxuu ahaayay mas'uuliyiinta wasiirka wasaaradda wasiiru dawlaha dhammaan oo aan wada garanayno soo wada shaqeynay inaan si ballaaran wada shaqeyn doono qarankana muxuu ahaayay himilada uu higsanayo yoolka uu higsanayo ah in qaranka Soomaaliland noqdo qaran madax bannaan la aqoonsan yahay horumarsan in yoolkaas aan ka wada shaqeyn doono oo aan noqon doono gacan yarayaasha madaxweynaha si fiican insha Allah uga soo dhalaali doono. geesta kale wasiirka xigeenkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa waxa uu ka hadlay intii uu joogay wasaaraddan qaranka u qaabilsan arrimaha qorsheynta wixii uu qabsoomay iyo sidoo kale mashaariicda horumarineed ay dalka ka fuliyeen. ilaahay mahadi wax badan baa noo hirgalay waxaa noo dhammaystirmay qorshihii qaranka NDP2 oo dhawaan madaxweynuhu saxiix doono oo si fiican ugu dhammaystirmay 9 bilood ugu dambeeyay habeen iyo maalin baan ka shaqeynay. waxa kale oo aan runtii halkan ka qirayaa una mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Qabyatire oo runtii muddada uu xilka joogay wasaaradda wax badan ka qabtay nala dhiirigeliyay shaqaalaha nala muxuu ahaa runtii socodsiiyay isla markaana nala dhammaystiray oo nasiibka ku soo beegay inuu nala dhammaystiro qorshaha qaranka labaad ee 5 sanadood. dhankiisa waxaa isaguna booska loo magacaabay soo dhaweeyay wasiirka xigeenka hore wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Axmed Xaashi Cabdi oo loo bedelay wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. waxaana madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uga mahadnaqay xilka cusub ee uga magacaabay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. waxaanu yiri runtii saad ka warqabtaan dawladnimadu waxa weeyaan waa meerto maalinba nin meel baa jooga marka horta marka ugu horeysa waan hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo runtii waa mas'uuliyadda qaranku isaga saaran tahay hawlaha qarankana isaga hadba meeshii baahidu taala ama hadba meeshii culays saaran yahay isaga yaqaana iyo intuu u magacaabayo markii aan isla aragnay waxaan gartay inay maanta loo baahan yahay inaan ka howlgalo wasaaradda maaliyadda saas awgeed buu madaxweynuhu ugu magacaabay waa ku mahadsan yahay anaguna waan kaga aqbalay waan ku faraxsanahay inaan noqdo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda. Cabdiraxmaan Carab Daawud TV Kalsan magaalada Hargeysa.